aakhiro iyo adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyana alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna mahad salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab sidaas aan kugu sheegaya buuna qorshahaygu ahaa inaan guddiga amniga qaranka hortooda ka sheego laakiin si aysan xogtaas u bixin waxaa la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن كسر دبادة ورارك ما أنت إني هينو هذا ساد أكتر هيبو أرم محل سعتي معلومهن طريقة هراء النساء فهد ياسين لجو وريسنا هاي أو اللي بقيب لو سجلنا هاي كنا هذه مال هراء يعني وركي جوز كها إنه كش مدها محل صلاة من الأمين كريم وكشري أرنتي جبر للدلي إكرام تهليل أيضا لفت هذا ماشي وكسوق هذا marka ayadana faahfaahin weyn uu ka siinin ayaa maanta arintii faahfaahin ka bixiyay wuxuuna sheegay inuu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay xafiiskiisa ay shaqo ka raasanaysay gabadhii oo dhowr jeer isku dayday meeshii ay daba socotay asagana loo ballamiyay inuu maaragtay meeshii ay xafiiskiisii uu rajo ka lahayd inay maaragtay ka noqoto inay marka ayada ka sugaysay maalin maalmaha kamid ayaa loo yeeray macnaheeda lana sheegay inay maaragtay uu u baahan yahay asaga xafiiskiisa marka ayada ahaydna meeshii gaari lagu qaaday xafiiskiisii haddana soo la gaarsiin xafiiskiisii meeshii la daba mariyay wixii ayada ahaa marka ayada fulinayeen uu sheegay inuu ahaa mahad salaad oo hadda madaxweynaha gudoomiyaha nisa kuna sheegay inuu al-shabaab markii dambena gacanta loo geliyay meeshaana lagu dilay gabadhii ayada ahayd waxa dilay hadda uu sheegayo cadeen hadda uu soo sheegay waxa waaye ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo marka ayada nisa ninka hadda uu مثلا weyn mahad salaad oo maalin hore eedeyn aad u culus ku soo jeediyay ayaa kamid ahaayeen dadkii uu dilay gabadha dilay la sababta loo dilana ay ahayd inay xaaladda wadanka uu ku jiro maadaama hadda xaalad xun oo aad u xaniban misna aad u fool xun uu ku jiray oo meesha ayada la isku haystay madaxweyne farmaajo la haystay ayaa lagu sabab ahayd in lagu sii qalqalgeliyo lana sheego in ay dhahaan macnaha ayaka ayaa ka dambeeyeen misna gabadhii wixii dilay ayaka ahayd maadaama meesha ay ka shaqeynaysay kalena wadamo daris misna wadamo fara badan ay arintaas ay lagu kula haayeen asaga laftiisa fahad yaasiin la shirqoolay inay asaga laftiisa la waayo dawladda hadda soo sheegay waliba Djibouti oo magacaabay inay ka dambeysay dadna madaxdan u ahayd inay shirqoolkaas ay kamid ahayd marka ayada waliba taliyihii booliska ee Djibouti uu marka asaga laftiisa uu lug weyn ku lahaa arintaasna wixii marka ayada aad ugu dhex jiray ay ahayd soo sheegana uu maartay gacan saar misana ay dawladda badan ee meesha ayada lafteeda ku jireen si ay arintaas u soo bixin waayo wuxuu sheegay in marka ayada uu helay war muhiim ah misana sidii arintu u dhacday iyo sidii taho guddigeed uu marka ayada rabay inuu sheego misana uu haystay saas la awligeed ninkaas in la waayo waa la waayay meel lagu sheegi karana hadda lama hayo in la dhaho bay maartay sidii ay ka taladii ku jirtay ahayd ay marka ayadana maartay sababtii weyn ahayd laakiin way fashilmatay waa la ogaaday arintii dawladda Djibouti ayaa qaar ka ogaatay madaxweynihii Soomaaliya maxamed Abdullaahi Farmaajo ayaa arinta ogaaday meesha ay ahaydna dawladda Djibouti loo qoray qoraal haddii ninka la waayo mise ninkaas wax uu meesha ku gaaro hadii iniga og mise iniga sidaad geelaysiin og mise iniga dilka ninkaas mise ninka hadii la waayo iniga sabab u ah ogaantay lahada teeda kale diyaaraddu la socday ayadana meesha ay ahayd tiray ma kacayna mise meeshan ma dhaafayno ilaa ay rakabka anaga oo dhameystiran aan helna ayaa sabab u ahayd sababta ay ku fashilmatay kadibna markii arintii saa u dhacday waxa kale oo meesha soo galay in ninkii uu fashilmo taliyihii Djibouti marka ayadana laga tiray mise xilkii laga wareejiyay laga qaaday uu sheegay arinta meesha uu waliba uu maartay uu meesha ku faahfaahiyay mise uu sheegay inay boqolkiiba 10 ay bas ka tahdo arrimo aad u weyn mise arrimo aad u muhiimsan oo meesha ayada ka sheegi karin ka faahfaahin karin maadaama hadii awgeed ayuu meesha haddana uu ka gaabsaday inuu sii faahfaahiyo mise uu dhameystiro arinta si ay u yeeshay laakiin uu ku sheegay in ay labada qof maartay madaxda ka ahaayeen
ra'iisul wasaarihii marka ayada xukuumadda loo doortay inuu dowladdii iyo rafaadkii mise dhibkii dhex yaalay waddanka inuu xalliyo dowladdina ku gaarto macnaha si ay ku dhammaan lahayd misena ay ku dhammaystirmi lahayd doorashada marka ayada socotay meel xunna maraysay ayuu haddana isbedelay inuu dowladdii bedelku si wanaag ku dhammayn lahaa haddana inuu haleeyo misena isagoo kaashanayo dowlado kale iyo hay-ado kale iyo musuq maasuqnimo kale inuu dalkii burbur iyo u horseedo ayuu ka jeclaystay ninka xilka loo qaaday soomaalinimo iyo muwaadinimo hadduu meesha uu gaar iska dhigay ayuu meesha ka jeclaystay inuu dowlado kale hadduu hanti iyo dhaqaale uu ka raadinayo la-awligeed ayuu ka jeclaystay waddankiisa inuu burburiyo haddiise ay ahayn ayakii oo ay ka gaabsadeen arrintii ayna aamuseen misene marka ayada ahba inuu qalqal iyo dabaroog iyo waddankiiba meeshii hal dhumi hal dhaan raaco ugu talagalay ayaa ku sababtay inay ka aamusaan misena ay ka gaabsadaan teeda kale wuxuu sheegay inuu markuu arrintii misena hadalka meeshii uu kusoo joodin lahaa la diiday lagana hor imaaday misene loo ogolaan waayo fadhigii inuu kasoo qaybgeli waayaan misene asaga laftiisii ra'iisul wasaarihii arrintii madaxda ka ahaa misena aabaha ka ahaa inuu meesha imaan waayo haddii meeshuu imaan waayane asaga waa ka xishooday inuu hadduu shacab loo soo dhex istaago mise soo hor istaago waddankii oo xaaladiisa marka ayadana iska foolxumeed uu dhaho arrintaas sidan iyo sidan iyo sidan bay u dhacday misena qofkii ka dambeeyey waa qofkan marka ayada ahayn haddii waxay noqon lahayd dowladdii ayuu la socdaa dowladda ayaa kamid yaa maaragtay waayo waxan misena siyaasa waayo waxan dadka soomaalidii waa la iska roogi lahaa wixiina waxay isku bedeli lahayd qabiil waxayna u sal u ahaan lahayd inay waddankii uu burburo taas la-awligeed ayuu uga gaabsaday misena uu uga aamusay maadaama meeshii uu u baahnaa misena uu rabay inuu arrintaa ku sheego mise ku shaaciyo laga diiday misena loo imaan waayo misena loo suurtagelin waayo inuu fadhiga dhaco loo dhiibay hay-addii nisa waddanka ayaa ninka ka ugu weynaa al-shabaabta la shaqaysanaya misena al-shabaabtii heshiis ahayeen misena wixii la fulinayo mise wax dilayo oo asagaba aaba ka ahaa ayaa maanta meesha loo dhiibay macnaha waxaa waaye qof tuug oo aad xoolahaada u dhiibanayso dhurwaa arigaada u dhiibanayso camal ayaa meeshay ka muuqataa ninkaasna haddee sababta loogu dhiibay kolay haddee madaxweyne xasan sheekh muu ogeyn misena warka ma haya miya maadaama nin siyaasi uu yahay arrintaasna haddee madaxweyne idil oo waddanka joogo arrimahaasay u kala socdaan ayuu ahaa misena ogaan karo haddee sidee asaga laftiisa uu ugu dhiibi karaa qof noocaas oo kale arrinta meesha ugu muhiimsaneed dowladda xubinta ugu muhiimsaneed loo dhiibi karaa looguna aamini karaa maanta la taagan yahay horta su-aasha aan isweydiinaya mise nin walba inuu isweydiiyo soomaaliyeed loo baahan yahay horta waa taas dowladdan arrintan maadaama hadda meesha ay soo baxdo waa arrin very sensitive waa arrin aad u foolxun waa arrin loo baahan yahay dowladdii misena shacabkii inay u istaagaan misena bal meel afkeeda loo bixiyo loo baahan yahay ma laga aamusi doonaa ma siyaasa waay mi haddana la dhihi doonaa maadaama asaga uu cadaystay oo uu dhahay wixii alla wixii loo baahan yahay mise wixii alla wixii la rabo oo ani la iiga baahan yahay diyaar baan oo leeyahay ma meeshaas baa looga aamusi doonaa misena arrintan way sii socon doontaa waana la dhamiya loo saari doonaa horta su-aasha aan isweydiinaya an lafteyda hadda misena nin kastoo inuu rabo la isku weydiiyo waxaa waaye maadaama hadda dowladda cusub meesha ay ka dhalatay dowladda cusubna meesha ay soo gashay arrintan ma arrin laga aamusaa maadaama haddii dadkii dowladda xubinta ugu muhiimsaneed ka haystay qaas ahaan ra'iisul wasaare dowlad inuu meel maaragtay maadaama meel xun ay maraysay misena waqti siyaaso iyo waqti maaragtay gebgeb la marayay la rabay inuu waddankiisa muwaadinimo iyo soomaalinimo uu u istaago hadduu gadaal soo maraa dowladdii khalkhal iyo rafaad iyo dhib soo geliyo may kula tahay daawade adiga laftaada ma arrintaas arrin wanaagsan may kula tahay misena arrin hadda in laga aamuso u baahan may kula tahay